waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay waanada macalinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay waanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa wadankiina wax u barta wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركز لي برنامج كيني كبر هودا واتكلا سعطان تيفية قرن كجمهورية سوماليلاند إذاعة الراديو هرقيسة وأنا مع الخضر هارون موسى ويدين دقة مادة حسابتها فصل كان فورم 1 10 تيرم كي هراء شابتر كي نكوات waxay ku jirnaa 10 kiisii shanaad la kana qaadan doonaa waxaynu hor soo qaadanaa 10 koowaad iyo labaad saddexaad iyo afraad oo aynu ku soo baranay qayb aad u muhiim ah chapterka casharkeena maanta wuxuu noqon doonaa ka bilaabmi doonaa waxa la yaqaano standard form ama qormo saynis waxaynu casharkii u dambeeyay afraad kale ku soo aragnay indagaska iyo qaabka loo qoro iyo sida muxuu ahaa marka uu isku geyn yahay ruliska soo qaadanay marka isku geyn yahay marka la kala goynayo marka la tiiji baarayo waxa soo soo aragnay waxaynu eegi doonaa dalka dhiga maanta waxa la yaqaano standard form oo qormo saynis iyo qayb aad u muhiim ah standard formka waxaynu eegi doonaa oo laba tusaale ugu muhiimsan mar waxa lagu siinay number ordinary caadi ah kadib waxa lagu oranay qormo saynis u qor taasi waa mid marna adigoo haysta qormo sayniskii inaad number ordinary caadi ka dhigi karto qormo sayniskuna waxay sida naga caawisaa number aad u fara badan ama aad u yaroon muxuu ahaa dhibtahay in la qoro in si fudud loo qori karo iyadoo marka power la adeegsanayo marka tusaalaha dabakooda waxa la yiri example 1 write the following standard form kuwan dhamaantood waxay noo qori doonaa standard form bay noo qoraynaa ka hore kale waxaynu haysanaa 60000 waa bidana waxaan haysanaa 60000 bidana waa 5730 sidoo kale waxaan haysanaa muxuu ahaa 8402 kana kala diidana waa markay pointiga xagan laga yimaado 0.0428 idoo kale 0.3038 marka daba qaabka lagu weydiiyo inta badan laba hab ay noqotaa marna powerku positive uu noqdaa marna negative uu noqdaa maxay kala duwan yihiin markuu balance noqonayo waa marka xagga midigta laga soo tiriyo xagga bidix loo tiriyo marka powerkeenu jibaarkeenu balance uu noqon doonaa hadaynu xagga bidixda ka tagno xagga midigta u tirnana wuxuu noqon doonaa marka isaguna minus ku noqonayo marka inaad qaabka u ogaato waa muhiim tahoradada soo qaadano halkaas imika pointiga noo yaala waxa kale oo muhiim markaad qormo saynis ka dhiganaysaan mar walba xagga hal gudba ka xiga midigta dhibicdaada waa inuu hal gud ama hal tiro uu xagga midigta ku hadho lama ogola saddexna ma noqoto hal gud waa inuu ku hadhaa marka ka hadaba markaynu ka soo qaadano halkaas aynu misalano kala pointigeena joognaa imisaanu soo guureynaa fiir hadeeg halka waa 1 2 3 4 imisaan guuray marka 4 marka taas waxay la mid tahay 6 times 10 ku jibaaran 4 marka qormo saynis qoray marka intaas ay u dhigmaysaa tan oo kale yadna halkaas pointigu noo yaala halkaas aynu ka soo bilaabi waa 1 2 3 maxay noo noqon marka 5.73 haddii siiroogu u dambeeyo siirooyo haddii xagga dambe yaalan waa la isaga tegi karaa laakiin hadduu dhexda ku jiro waa la qoraa marka imika siirooga dambe waa isaga tegi karaaba kadib waxaan odhanay 10 ku jibaaran imsaan tirina marka 1 2 3 10 power 3 sidoo kale waxaan haysanaa 8402 imika siiroogu dhexda ku jiraa imika halkaas aynu ka soo bilaabi 1 hal baynu soo guurnay god 2 3 kana way marka halkaasna waxay noqoni 8.402 lagu dhuftay 10 ku jibaaran tiree marka siiroogu hadduu dhexda ku jiro number hareeraha ka xigaan laga tagi maayo goorma laga tagayaa marka uu dambeeyo intaas waxaynu ku aragnay xagga midigtaynu ka soo tirinayo
xagga bidixaynu u tirin waxa weyn tiradaynu tiro buuxdo dhammaystiran bay ahayd haddii aad daba decimal noocana noqoto oy muxuu ahaa jajabkan yeelato oy bointigu xaggan inoo yaallo waxaa laga tirin xagga bidixda waxaan loo tirin xagga midigta marka haddaba jibaarkeenu waa marka uu noqonayo minuska weeye marka uu minuska noqonayo marka imika waxaan ka bilaabay isagana 1 iyo 2 halkaa waa inuu hal godon xaan ka soo xigaa dhibicda maxaan marka odhanayaa 4.28 lagu dhuftay 10 imise godbaan guurnay markaa 2 aynu guurnay markaa 1 2 waa -2 markaa jibaarkeenu maxaa noqonayaa waa -2 ta kalena iyadna sidoo kale weeye xaggan aynu ka tirinaa imise aynu guurayna markaa 1 2 3 4 waxay noola mid tahay 3 times 4 8 lagu dhuftay 10 ku jibaaran -1 marka labadana kala fahamtaa markuu jibaarkaygu balaas yahay markaan ka soo tiriyo xagga miitaan bidix u socdo haddaan bidix ka tiri midig socona waxa uu noqonayaa minus kaasi wuxuu hayay ordinary aan haysanay in standard form loo qorayo tusaalahan kale waa kan cakiskiisa imika qormo sayniski baa lagu siiyay maxaa laga doonayaa numberkii ordinary caadiga baa laga qorno markaa express the following in ordinary form qor tan kale waa 3 times ku jibaaran 3 times ku jibaaran 2 4.3 times ku jibaaran 5 iyo 9.7 ku jibaaran -4 kan waxa daba number caadi ka dhigayno waxaynu qoranaa kana jibaarkaasi wuxuu noo sheegi doonaa inta god la soo guuray inta god la soo guuray haday number meeshii inoo yaalaan waa laakiin hadaynu oolin waxa siriin ku bixsanayo waxa ka dhigi kara qaabkan waxa u dhigantaa tiri lagu dhuftay kan muxuu dhigmaa waa 100 ilaan 10 ku jibaaran 2 laba jeer baynu isku dhufanayo 10 power 2 ma khalana macnaheedu waa maxay waa 10 times 10 weeyi oo dhiganta 100 saadiradeed waa 3 times 100 maxay noo sameeyay waa 300 weeyi taas waa inta tan kale iyadana imisaynu ku dhufananaa waxaanu ku dhufananaa maadaama uu shankan sheegayo 10 ku jibaaran 5 na maxay u dhigmaysaa 10 kama shan jeer isku maxaa ka soo baxaya 100 kun bay noo soo bixi intana ma 100 ku dhufanayo waxay la mid tahay ana idhaahdo 4.3 times 10 lagu dhuftay 10 power 5 maadaama inta ahayd 100 kun baynu ku dhufananaa ilaa 10 ku jibaaran 5 waa 100 kun markaan inta ku dhufto hal zero dhibic saari doona waxa soo bixi doona 4300 waxay noo soo bixisoo 430 kun bay noo soo bixi kaasina waa numberkii caadiga markay noo qorno maxay isagana qormo sayna time soo tirna maxay noqonaysaa 1 2 3 4 5 dan dib celinay kana maadaama uu minus yahay isagoo u qaybin buu noqon kala laga dhufanayay kana qayb buu noqonayaa wuxuu sidoo u qaybsan markaa isla waxay noola mid tahay odhanaynaa waa 9 times 7 10 ku jibaaran maadaama -4 yahay 10 power -4 haddaan isagana eegno waxaan haysanaa 10 ku jibaaran -4 macnaheedu waa maxay markaa waa 1 of 10 ku jibaaran 4 saynu minuska uga saarno hal baynu qaybin inagoo ka faa'iideysan xeerkii jibaxa la soo baranay hal loo qaybiyo 10 ku jibaaran 4 way marka qaabkaas aan ka dhigi karaa waxay la mid tahay 9.7 divided by 10 power 4 10 power 4 macnaheedu waa maxay markaa waxa weeye waa 10 kun weey waxay la sii mid tahay markaa 9.7 divided by 10000 markaynu u qaybino marka waxay aakhir noo soo bixi doontaa 0.3097 oo markaynu intaa u qaybino ka soo bixi hadaynu ku celisnaano waa inay intii noqotaa markaa markaa ka guureynaa 1 2 3 4 waa inay sax noqotaa marka labada example waxaynu ku kala fahamnay standard form markaan lagu weydiiyo qormo sayniska adoo number caadi haysta inaad qormo sayniska dhigi karto kalena fahamto balaaska iyo minusku marka balaas yahay midda laga soo bilaabaya marka minus yahay bidxa laga bilaabi iyo marka qormo saynis lagu siiyo qaabka lagu qoray maxay ordinary form waxaynu raacinay logarithmka ka waxay noo raaci doona logarithmka inuu yaaqay noo raaci iyo qaabka loo qoray isagana logarithm haddaan imika tusaale ahaan oo kale ka log form haddaan qoray imika markaan iyo exponential form exponentialku waa jibaaradeen oo aynu ka dhignay raacinay equation exponential imika haddaan ka qoro
log base 2x wuxuu la mid yahay y log base 2x log base 2x equal y haddaynu qormo saynis exponential qoran jibaar u sameeyo iminka taasi waa log form weeyi log base 2x equal y kaasoo kale iminka waa log form weeyi haddaan exponential ka dhigayo qaabkan uu noqonaya markaa waa 2 ku jibaaran y equal x 2 ku jibaaran y equal x kaasina markaa wuxuu isna noqonayaa kani waa exponential form jibaarka kana waa log form weeyi marka labadaasina waynu isku bedeli karnaa iyaga laftooda haddaba tusaale ahaan haddaanu example qaadano example tusaalaha koowaad waan ka qaadana isagana ee logaasi le example 1 waxaa la yidhi write down the logarithm form the following logarithm form baa laga doonayaa inaan kuwan soo socdo qorno markaa waxaa ka mid ah number a saddex baniyana aan ka qaadan doono example oo kala duwan ta koowaad waxaa layga rabaa inaan logarithm form u qoro eeda waxaynu haysanaa waa 4 ku jibaaran x equal 16 and b waxaynu haysanaa 5 ku jibaaran x equal 13 c waxaynu haysanaa 8 equal 2 power 3 imika kuwaasi waa exponential form wey maxaynu bedelinaa logarithm form baynu ka dhignaa write down the logarithm the following exponential form exponentigan hayna ama exponentialkan haysano waxaynu u bedelinaa maxay logarithm form baynu ka dhignaa qaabkee markaa logarithm form ka dhigaynaa halkaa daba si fiican arday wala soco qaabka aynu ugu bedelano eeda waxaynu haysanaa waa 4 ku jibaaran x equal 16 inagoo intaa haysana waxaan isweydiinaynaa horta log halkaa ii soo dhig log basekeenu keebuu noqonaya baseku ma 4 kuu noqonayaa ma 2 ma x kuu noqonayaa mise wuxuu noqonayaa maxay 16ka halkaa markaa arto basekaagu wuxuu noqonayaa kan baseka marka horeba ahaay powerku saaran yaho log 4 waxaan odhanay 16 equal x qaabkaasuu noqonaya halkaa markaad joogto kaasi x jibaarku saaran yahay baseka loguu kuu noqoni numberkaasina waa kaad logiisa raadinayso equal x markaa log 16 base 4 equal x ka bidana isagana waxaan haysanaa 5 ku jibaaran x equal 13 log markaan idhaahdo taa horuma ka faa'iidaysanayeen basekaasi waa maxay isagu base 5 13 ayaa x la mid ah logga 13 base 5 muxuu la mid yahay x ka sida isagana xaggan la soo mariyay isla qaabkan uu noqon doonaa waxaan isagana odhan doonaa un c waxaynu haysanaa 8 equal 2 power 3 log aan idhaahdo basekaygi waa 2 waxaan logiisa raadinayana waa numberkan 8 equal 3 marka haddii lagu exponential lagu siiyana qaabkaasaan logarithm lagu bedeli karaa exampleka labaad waa kan cakiskiisa adoo haysta imikana logarithm form exponential ma ka dhigi kartaa wey tana right waxaad u qortaa baa la yidhi in exponential form exponential form baan imikana u qoraynaa maxaynu haysanaa markaa imika ta koowaadna imikana logii baa lagu siinaya logarithm formkii waxaa lagaa raba inaad exponential kusoo celiso ta koowaad oo kale log 64 base 4 equal 3 b log base 10 b equal 7 halkaasi waa b equal 7 c-na waxaa la nidhi log base 2y equal 12 imikana waxaa lana siiyey logarithm formkii ma u bedeli karnaa exponential form example-keena labaadna kaasaynu ka faa'iidaysanaynaa inagoo imikana haysana logarithm formkii ma ka dhigi karnaa exponential form
halkan aan ku qor haddaba ansarta imikana ta hore eeda maxaynu haysanaa log base 4 64 equal 3 exponential form baynu ka dhigaynaayo waxaynu ka dhiganaa qaabkii exponentialkii equationka imika soo arkayna tii hore marka haddaba qaabkaa loo qorayo basekaaga waxaad ku jibaarataa numberka halkaa yaal waxaad odhanaysaa 4 power 3 ayaa kuu leeg 64 habkaasi waa exponential form markaa imika tabida waxaynu haysanaa log base 10b equal 7 iyadna waxay noola mid tahay markaa basekeennu waa 10 waxaan ku jibaarayaa 7 waxay la mid tahay logan doonayo ah b c waxaynu haysanay log y base 2 equal 12 waxaydna exponentialkii maxaa noqonayaa 2 ku jibaaran 12 ayaa waa inoo leeg markaa oo kuwa markaa raadinayna kuwaasi marka habkaana labada example waxaynu ka fahamnay adoo exponential haysta inaad logarithm form ka dhigi karto adoo logarithm haystana inaad ka dhigi karta maxay exponential form waxaanu raacinaynaa logarithm lowga sharciga ama xeerarka marka qaarkood oo kale isticmaalo logarithm formku qaabkaynu iyagana uga shaqaynaynaa the logarithm low sharciyada baa la isticmaalayna iyagana la isticmaalo sidii aanu xalayba soo aragnay exponent ama indagaskuna uu rules lahaa xeerarka jibaarada logga markaynu ka hadlaynana saddexdana ugu muhiimsan waxaan leenahay log base b x y haddii logga uu ka yimid dee laba tiro oo la isku dhuftay waxaa laga dhigaa iyagoo la isu geeyey log base b x plus log base b y haddaanu isku dhufannay way isku geyn haddii la isku qaybshana ta labaadna waxay noo sheegaysaa log base b x divided by y iyadna waa la kala goyni waxay noqoni log base b x minus log base b y number 3 haddii power uu sii saaran yahay log base b x ku jibaaran n haddaynu haysanno waxay noola mid tahay inaan powerka xagga hore keennay n log base b x saddexdaa xeerba iyagana ugu muhiimsan marka laga hadlayo xagga indagaska laga hadlayo iyagana marka laga hadlayo logarithm lowga cafwan markaan logga sheegayno saddexdaasa ugu muhiimsan bal tusaalayaashoodaan qaadano example 1 ku saabsan kaa hore examplekaasi wuxuu leeyahay express each of the following in a single logarithm. Single logarithm. eeda maxaynu haysanaa markaa eeda waxaynu haysanaa log 4 plus log 5 b log 40 minus log 8 c waxaynu haysanaa log 25 plus log 2 minus log 10 haddaba aynu saaynu istalaa uga shaqeyno haddaynu xeer ku yar noqono haddii laba log oo isku geyn tahay isku dhufashaynu ka dhigayna
hadday isku dhufasho ahayna waxaynu u kala qaadi karnaa isku geyn log iyagoo isku kala goyna waa isku qaybin hadday saa u qoran tahay imika kuwaasoo kale waynu isku qaybin hadday power leedahayna xagga horeyna ku dhufan haddaba kuwan saynu uga shaqeyno taa horaan soo qaadano eeda waxaynu haysanaa log 4 plus log 5 waxaana yidhi express each of the following in a single logarithm mid kaliya aynu ka dhigaynaa marka imika waa laba la isu geeyey hal maxaan ka saarana maxaan log ka saarana waa maxay waxa u dhaxeeya isweydiina calaamadda waa plus kol hadday plus tahay maxaa la samaynayaa waa la isku dhufanay tan haddaba waxay la mid tahay waa log 4 times 5 log 4 times 5 maxay noo soo bixi log 20 marka log 20 marka ka single kala sheegay marka waa ka single logarithm maxaan ka dhignaa imika bida bidana maxaan haysanaa bna waxaynu haysanaa log 40 laga jaray log 8 kol hadday ka jar tahayna waa isku qaybin baynu ka dhigaynaa waa log 40 divided by 8 maxay noo soo bixi markaa waa log 5 iyaduna tasiida waxaa arkaysaa sidaasi saddex qaybood bay laba isugu jirtaa waa isu geyn iyo kala goyn baa labadii meesha ku jira marna waynu isu geynay marna waynu kala goynaynaa marka haddaba la isu geynayo qaabkeen uga shaqaynana markaan qaabkaasoo kala aragno log 25 loo geeyey log 2 laga jaray log 10 waxaynu marta marka labada hore isu geyntaa ayaynu isku dhufan waxaan odhanayaa markaa log 25 times 2 minus log 10 labadan isku maxaa ka soo baxaya waa log 50 laga jaray log 10 maxaynu ka jarayna markaa log 10 kol hadday ka jar noqotay sii hore noqonayo isku qaybin baynu ka dhigaynaa markaa kol hadday ka jar noqotay waynu isku qaybino waxaynu odhan doonaa markaa waxay noola mid tahay log 50 loo qaybiyey 10 labadaa isku qayb maxay noo soo baxaya log 5 iyaduna weeye taasina log 5 bay noo soo baxay kuwan haddii evaluate lagu idhaahdo example saddexaada kuwaasi leeyihiin aan ku daro evaluate example 3 waa logaan ku hadlaynaa markaa evaluate eeda waxaynu haysanaa log base 24 bidana waa log base 3 koob iyo 80 bal kuwaana sidee baynu u evaluate garaynaynaa ama u qiimeynaynaa labadaa xaba meesha inoogu qoran waxaanu samaynaynaa kuwana si aynu u evaluate garayno qaabkan aynu uga shaqaynaynaa eeda maxaynu haysanaa log base 24 muxuu inoo noqonayaa log base 24 muxuu inoo noqonayaa waxaynu odhanaynaa let ka soo qaad inuu muxuu ay noola mid yahay log base 24 equal x ka soo qaad inay markaa x noo leeg tahay maadaama aynaan garanayn qiimaha imika laga doonay kol hadday saa tahay waxay noo qori doonaa qaabkii exponentialko si aynu soo aragno waxa odhan waxay la mid tahay 2 ku jibaaran x ayaa waxay leeg tahay 4 exponential baan ka dhigay exponentialka markaad qiimihiisa raadinaysa hadda waxa muhiim ah inaad labadaba isku mid ka dhigto mid kasta oo base iyo power yeesho sida imika qaybta soo kale leedahay base-keeguna 2 yahay power-kuna x yahay kana waxaan ka dhigay base iyo power baan u samayn saynu sameeyna markaa waan isireyni 4 markaan isirey labaan u qaybini waa 2 laba kale u qaybi waa 1 labada maxaa ka soo baxay waa 4 oo u dhiganto 2 power 2 marka 4 kaas maxaan ku bedeli 2 power 2 oo aan wada lahayn inaan base iyo power ka dhigto kol hadii labada base leekaadeen labada power ma isku waxaan leeyahay marka therefore x equal 2 hadda waxaan leenahay therefore log base 24 wuxuu inoo leeyahay 2 wuxuu inoo leeyahay 2 ka bidana sidaa baynu uga shaqaynay isagana
bidana waxaynu haysanaa uun log base 3 koob iyo 80 let ka soo qaad inuu log base 3 koob iyo 80 inoo leegyahay egas ilaan egas waxa loo qaataa mar walba ay faa'iido tahay inaad u qaato waxna qiimihiisa garanayn waxaan markaa odhanayaa 3 ku jibaaran egas waxa ay leegtahay koob iyo 80 aan iyadana sidoo kale kol haddii qaybtan tirigani base yahay tog egastana power tahay koob iyo 80 kan aanu sameeyay base iyo power see lagu sameeyaa waa la yar isiriya marka koob iyo 80 inta badan marka wax la isiriyo waxa lagu bilaabaa nambarada aan u soo bixinay prime numberska 2 iyo 3 iyo 5 iyo 7 imika 2 ma qaybinayo 3 baa qaybinayo 27 bay noqon 3 kala qaybinayo waxay noqon 9 3 kala qaybinayo 3 kala u qayb waa maxay waa 1 hadda waxa maxay nooga soo baxay 1 2 3 4 oo macnaheedu tahay 3 ku jibaaran 4 3 ku jibaaran 4 saadada waxaan leeyahay 3 ku jibaaran egas waxay leeyahay 3 ku jibaaran 4 kol haddii labada base leekaadeen power ku isla waxaan markaa egas waxay noo leeyahay 4 waxaan daba leenahay therefore log base 3 koob iyo 80 wuxuu inoo leeyahay 4 wuxuu inoo leeyahay 4 halka waxay noogu dhamaaday cashirkeeni shanaad ee chapterka koowaad ee muxuu ahaa xisaabta foomanka cashada ku jirnaana waa teeramkeeni hore chapterkeeni koowaad weeyii intaynu cashirkan mid lamid ku kulmi doono waanigo macallin Khadar Harmuuse assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macalinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa wadankiina wax u barta wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waaban mayno